waxaan rabaa marka hore inaan mahad u celiyo dadkii soo diyaariyay shirka heritage. adduunka waxaa lagu hormaraa waa wada hadal. ummaddu hadday wada hadli weydo xal ma gaadho. negotiationka aad ka qayb qaadatiin wuxuu ka mid yahay wada hadalladaas. ummadda wada hadasho xal baa la helaa. marka heritage waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. dowladda Djibouti basically ma fududa 150 ruux nabadgelyadooda in si wanaagsan loo soo dhaweeyo iyo protocol wise in la soo dhaweeyo wax fudud maaha. marka waxaa leeyahay dowladda Djibouti aad baad u mahadsantihiin. markaan u gudagalo topic la siiyay waxoogaa waa weli dowladda cusub ee 8 bilood bay hadda joogtaa. markaas beddelka markaan ka sheekeynayno ma aha isbeddel intaaynu emotional noqono leenahay maantada maxaa dhici. isbeddelku wuxuu u baahan yahay waqti dheer process. raggii iga horreeyay professoradii iga horreeyay waxay ka hadleen Horn of Africa. Horn of Africa is full of dilemma. waa region dilemma ka buuxo. prisoners dilemma ku jirna waan si jiidana. saynu uga baxnaa jiidkan. how can we get out of this dilemma is the question then. unity hadda soo qaaday professor Afiari is right. laakiin maxaynu sameynaa? unity ma waxaa loo jeedaa inaan midoobno oo wada mid noqono mise wixii dan noo ah inaan ka wada hadalno. so one we have to define is right. maxaan u jeednaa midnimadan? laakiin haddayna midnimo sameyn weyno oon dhaqaalid ku furi weyno oon borderkii furi weyno oo intaasu midyan haysano intaasu boortiaan haysano maxaynu ku qabanaa marka? so we have to get out of this dilemma. that's number 1. 2, sideynu marka cid kasta uga faa'iideysan kartaa isbeddelka waswaash marka. we call that in English Pareto optimum. maadaana dhaqaalaha dadka barta noo sheegi kara Pareto optimum. that means you make everybody good without making anyone worse off. cid kasta ka faa'iideysan marka iyadana cidna xumaanin cidna la dhibin la istixgelinayo dhammaan in la faa'iideysto marka waa respect. equality aan ka sheekeynay waan ka sheekeynaa marka ayno ayar ka sheekeynay professor Kenny Afiari ayar wax kale ma leh. ayar international relation wuxuu leeyahay hal istixgeliyo. istixgalka idinka inta micnaheedu waxay tahay dal kasta isaga jirtaa inuu define gareeyo uu meaning siiyo istixgelintu waxay tahay. laakiin from Ethiopian side istixgelintu waxay inaynu wada shaqeyno inaynu wada hormarno. annaga 120 milyan baan u soconaa. waxaa u baahan yihiin waadada wax bartay u badan yihiin hadda like 500 kun dhalinyarada sano taagan oo minimum BA wada haysta 500,000. so inuu dalka u fikiro meelo la geeyo dhalinyarada inta eemay ka kalena waxaa la rabaa marka imtiisa marka eego cost benefit analysis. you make the cost benefit analysis. hawlihii mahadda gobolka markaas like Somali region kama hadli karno Horn of Africa haddaanan ka hadal buuyin Middle East. Professor Afiari, Horn of Africa is in the middle of Middle Eastern countries badana. nin raba inuu ka hadlo Soomaaliya waa inuu ka hadlo Sacuudiga. that goes without saying. the same applies to Somali region of Ethiopia. kama hadli karti Somali region adoona ka hadlin Soomaali meesha degan yihiin. so waa isku xidhannahay marka la aqoon. laakiin science ku xidhannahay say u define gareynaa xidhnaashihiisina muxuu yahay marka. so marka waxaa u baahannahay inaan hoosta ka xariiqno markaan ka hadlayno gobolka Soomaalida Ethiopia inaan laga hadli karayn unless ay taabano Soomaaliya, Djibouti, Kenya. ma dhaha. so we are the center of Somali's politics. nin ka raba inuu ka hadlo regionka Soomaalida waa inuu basically markaa ka hadlo Soomaaliya. ceebna ma leh. dhibku wuxuu ahaa ruux dadsan oon dalkiisa aaminsanayn markuu soo istaago stageka dhibkeeda leedahay. ruuxu markuu dana gaara leeyahay uu baqaa. waxba cabsiina ma hayso annaga islaam. waxaan leenahay dalkaasaan u dhalanay laakiin dadkii Soomaalina walaalaan nahay. meelna ma kala tegayno. meel la kala tegayno. Abiy Shadow wuxuu yidhi hal erey buu Ethiopia u sheegay. wuxuu yidhi regionka Soomaalidu waa gatekii buu yidhi Ethiopia u mar lahayd bi Soomaalida. Somali region is the gate to Somalia. si cad buu sheegay. ceebna male. wuxuu yidhi we have to use waynu isticmaalnaa 8 milyan waynu isticmaalnaa dhulka ballaaran
waynu isticmaalnaa oilka leeyihiin laakiin haddana wuxuu kusii daraa annagoo naan infringe garaynaynin right-ka ay soomaalidu leeyihiin. So as Somalis hadduu ninkii dalkii haysaa ku hadlayo annagu san ugu fahaysanaa markaan iswaasho dilemmaha ka taagan Horn of Africa. Each state in Horn of Africa dilemma ka taagan each annagana dilemma crossroad baan saaranahay waa isbedel cusub. Soomaalidu say ugu fahaysan kartaa markaas waasho sidee ugu fahaysan kartaa without any emotion markaas like should be very careful. Emotion haddii aynu saarno oon ka hadalno waxoogaa wax yaryar oo hoosa haddee waxba isku soo jeedinayna marka waxaa loo baahan yahay marka in si cad loo hadlo the hard politics siyaasaddii adkayd annagoo Soomaaliya markaan taariikhda dib u eegno dhibkaan soo marnay is 1, 2, 3 marginalization. waxaa lagu tilmaamayay secessionist, waxaa lagu tilmaamayay the spoilers kuwa dhibka keena dhib umad wadin Soomaaliya Itoobiya wax kala waysan ma jirto. Perception-kana loo qabo inaan markoo la dagaalamo baayo santarka ma ka carrayno federal level-ka ma ka carrayno haddii aan u cararno meel aan u cararno ma haysano. So we have to fight. Perception-kan ka dagaalamina number 1 spoiler ma nihin xaq baan u leenahay dalkan gobolka oo ballaaran baynu haysanaa. By 2020 boqolkiiba 60 income-ka dalku ama taxiga dalku ama lacagta dalku wuxuu ka iman doonaa gobolka yahay. markaasaan u fikirnaa marka waxaa loo baahan yahay strategically maaha dhawaaq emotionna ma aha qabiilna ma aha. I guarantee you haddii aynu ka baran weyno taariikhda wixii shar dhacay 27 sano ugu dambeeyey. I call leadershipkii TPLF that's the mafia leadership act. Mafia ahayd dalka way dhaceen dalka way baabi'iyeen dadkii way isku dhaceen Soomaalida dadkii kale ku dareen laakiin qaarkeedna waa shacabiyinta leedahay inagoo dhibka aragnay. So I want you to be very careful. I have to be honest here. waxaa loo baahan yahay Soomaalida kale haddii aad taageero sii dhiseen Soomaalida walaaladiin ha ku raacina qabiiltii hebel libaax buu handa tirwaa waa badan yihiin markuu dadkiisa leenahay hebel waa ninka keliya tee wax soo ridan kara waa adeerkay in libaax waxa ka soo ritay waxba kama soo ridan jirin dadkiisu libaax u dhigi jiray. marka waxaa loo baahan yahay in intervention-ka aynu inagu ku gelin laftigeedu u noqdaa mid miisaanan. hadduu miisaanaan waayo dhibkeena opportunity-gaan maanta haysana waa midaan abi ku test garanayno. number 1 we test our leader. He is our leader. We say maxaad noo qabatay maxaad noo soo wadaa shalay maxaad ka baratay mistrust jirin maxaad ka qaban doontaa oilkan haysano intaynu isticmaalaynaa federaalka 170 institution oo madaxa u baahan yihiin imisaan ku haysanaa. We have thousands and thousands of offices halkee ka taaganahay. Then the rest, Djibouti is our second home, Somalia is our second home, Kenya is our second home. But we need to defend first our first home. marka anagana waxay tahay markaas bedelkii yimid dalka ka yimid abi maanta waa loo wada siman yahay laakiin sinaankaas laga yaaba inaynu misgareen. sinaankaas maanta loo arka Soomaali you do your job. innaga ruuxa erina innaga keena maanta innaga lacagta isticmaalna jinka maanta waa u waxanunahay independent ninka garay ma dhaxtaagan no haddii markaas yar sii wadanaa marka wanaag hadda la siiyay maxaa loo baahan yahay kow inaynaan marka hore ka baxno the politics of blame-ka intaynaan farta inta ku fiiqin innaga isku fiiqno marka hore Soomaalida dalka Itoobiya laftigeeda marka hore fartaas ku fiiqno maxay loo baahannahay ma ka baxnaa qabiil lagama baxaye laakiin aan wada shaqaynaa leeyahay marka hoosta ka xaqiiqaano because we have to be realistic. dhammaan inta hadda ducayno oo quraanka ka wada hadalno oo xadiisiis soo dhigna markaan guriga tagay xadiiskiiba waa qabiil waa isbeddelaa. It's like it automatically changes. The moment we are going to have lunch now is all about qabiil, so therefore waxaynu u baahannahay inaan Ethiopia tusno inaan midnahay. Midnimadu alternative ma aha Soomaaliya Ethiopia. It's not an alternative. haddaan tafraar ku jiro fragmentation mark my word
a year or 2 years after, TPLF ka cabaadaya in exact news that will come. Mark my word, haddii aynu tafaraaro ku soconno oo mid kasba degmadiisii zoonkiisii gobolkaygii degmadii reer Hiilbaax hadduu ka bixi waayo, basically stylekii jiray ahaa the domination of Somalis by the very few group, hayaanan iloobin, very few bahay. maanta xaaladdu waa ka duwan tahay, very few bahay. marka ko waxaynu u baahannahay midnimadeennu waa muqadas, meel la kaga karmin. choice-na ma lihin baan idhaahdaa ninka, we have no choice. laba, maxaynu ka sugaynaa federaalka markaa weeyaan? Abiy iyo kooxdiisa waxaynu ka sugaynaa inuu la shaqeeyo qabiilada Soomaalida, inuu ka dhex shaqeeyo maaha. I will say that clearly. If they work between the clans, that's a problematic. The vicious circle will come up again, and they will never basically get out of the problem. Taas annaga waxay tahay no. Hebel waa walaalkay, no matter what. Annaga know that this is an internal job. So us is also we are part of that. So Abiy waxaynu rabnaa inuu la shaqeeyo qabiilada Soomaaliya, aynu la shaqeeyo. The number 2 is in the Georgia system ki aha co-optation. I mean, one individual, Abdul Wasa, cannot represent the 80 million and above Somalis. Ma matali karaan kaliya. Waxaynu u baahnay Soomaali badan oo isla joogto. That's why for this miiskan rahan Ethiopia waxaan leenahay sheekay. Ethiopia inuu ku faraxsan yahay, by the way. Ani recently I gave an interview on leeyahay annaga cabdi waxba nama yeelin idinkaan yeelin. One national TV ga dalka. Wallahi baniga ma aha. Meeshaan maro way wada salaamaan. Thank you very much for telling us. Cabdi ilay masalan. So therefore haddii aynu kalsooni dalka qabno, haddii dhexdeena aan kalsooni leenahay, Abiy markuu taacabo qabiilkii la shaqeyn maayo la shaqeyn. Co-optation baa istaagay. Sheerkaa ku leenahay federaalka kor u kiciyo. Marka xaaladdan aan ku jirno maanta waxay u baahan tahay emotionkii ay Soomaali ahayn ma baahna. Inaynu wada cararno hebel baa la soo dhaweeyey, it's beyond that. It's beyond that. I have to be honest. waxaan la tacaamilaynaa 112 milyan. waxaan la tacaamilaynaa dad wax bartay oo siyaasadda si fiican u darsan. waxaan la tacaamilaynaa dad Soomaalida si wanaagsan u fahmay. hamoodina inayna aqoonin. habeen iyo maalin baan la ogyahay waxaan sameyn. kayna madaxa isla soo istaaga, halku ku dago, meeshu tago, meeshu ka cuno, everything. yaana isku day inaan naive noqono markay Ethiopia noqoto. So I say, understand the mentality and the perception of Ethiopians. haddaad fahmi weyno waa been. صعب ما بلاغنا وإنه في عباية يدور الباحة وصومال أي كيس والله وديان فريد do you know نقاس في عم متقاني I say go and look into the profile of the person. profile is أيها وحاكس مركب وحيكون حنا نتبدل كنا ما نترنو وحاكوس وجبنا intention كفدرالك intervention كفدرالك. I say the intention and the intervention. labada waxay u baahan yihiin in wax hoos laga xariiqo. hada hoos laga xariiqo weyno oo la afka aan noqono gabadha beertaaf maana ma hal kullu macallin maaska ay waxa bilaabo discussion رئيس وزراء وحيين خضر الجنوس أيوة family maaska no de Ethiopia no ya so he's representing Ethiopia too. I'm maybe the during discussion and how we will be in Sugar.